حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. anigoo qaasim xaashi waxaan halkan ku duubahayaa laba tixood oo gabay ah oo midda hore la yiraahdo difaac nabi. gabaygan difaac nabi wuxuu soo baxay markay taariikhdu ahayd 21 Rabiicul Awwal sanada 1435 oo ah bishii rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamu alayhi uu dhashay. gabaygan oo aan ugu talagalay inaan kaga qayb qaato xafladaha mawlidka rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam ana ku booriyo muslimiinta mawlidka jecel iyo khayrka rasuulka iyo mataqaanaa ihtifaalkiisa jecel in aan ku baraarujiyo uguna sheego sida mataqaanaa mawlidka iyo khayraadka la isugu imaadaya ay u baraka badan tahay iyo sida loo isaga sawaabsiinayo. bidcada rasuulka ka soo horjeedana aan ku radiyo oo aan ugu sheego inay baadil cad yihiin bidcada rasuulka uu ka digayna ay yihiin mawlidkuna aan loo joojinayn daraadood anoo raba inaan u sheego ayaan tixdan difaac nabi tiri sidaan ayayna u dhacday dhageysi wacan. ilaahow daliil toosan loo daa'im baa tahaye adaa diinka soo dejiyayoo taaha soo diraaye adaa doortay oo yidhi xabiib daahira tahay diintayda gaarsihii khalqigii wa ay dulloobeene dadka kii ku raacana u sheeg jannaa loo diriye dagaladii firdowsaad ayaa loo darbahayaa kii diida khayrkoo xumaan dacalka loo saaray digniintayda gaarsii cadaab wow dibdhigayaaye inaan naar ta dalaqa siinayana daliiladow muuji annaguna dadkii raacayoo doonay baan ahaye kama daalo dikrigiisa oo waan daldaalaynaaye maxabada dartiis baa jirkubaa nala dubaxshaaye waxaa loo dabaal degahayiyo danaaha mawlidku dunyadaas la wada gawriciyo khayrka lagu daahi waa jacayl ka taaha inaan wada dareenaaye xilqadaha dikriga suubanaha lagu dadaalayo xadradaas la daaran dooriye lala diryaamayo waa jacayl ka taaha inaan wada dareenaaye deeqdaas la bixinaaye ee dacwalba loo sayri masaakiinta diifaysanee laga durduraayo waa jacayl ka taaha inaan wada dareenaaye daafahaas islaam kala jiro ruuxba daagal ootay oo dayr laysugu keenayoo lagu damaashaaday dulmi weeye ruuxii qabaan diin wax ka ogayne daliilkeeda oo dhaba haddaan diirka ka hikaadsho oo aad diiddo khayrkii ayaa show laga dadaye taaha xabiibkii ayaa daa'imo falay ruuxii dikriya oo wanaag dawya kula dhuunta ilaahiisa daa'ima inuu darajo siinayo taaha
ruuxii dikriya oo wanaag dawya kula dhuunta ilaahiisa daa'ima inuu darajo siinaayo daahyadii naciimaad kolkaas laga darduuraayo dadka kii dhex joogana wanaag loogu sii darayo oo uu darajo dheer yahay midkaas dawyada ku dhuuman oo dikrigii diiwaanka sare lagu daliigayo oo malaa'ig daahira la orandayoy addoonkayga waa daruus rasuulkeenna oon dahaar ku dheehnayne daliilkaas bukhaaraanka dayay haddaad xaq doonayso mawliidka ruux diidanow daalin baa tahaaye qorax duhurkii joogtaad rabtaa inaad dabooshaye dayaxo dhammaystiran ayaad diiday leedahay nuurkaas dilaaca adiga daah laga suraaye qur-aankiina diidaye xadiis daaba hadalkiisa daliil quraa mahay sidee afbaad igu dayaysaaye dhal dajaal inaad tahay ayaan iga dahsoonayne dulquwaysarkiibaa ku dhalay daacufta lahaaye asaga ku duufsaday kol hore ima adiideene madaxii uu ku diiray baan daaqad ka arkaaye garkiisii dulaysnaana waad ilaa dul joogtaaye guntigii uu ku duubay baan dacal u jeedaaye ilaahay duleeyow haddaad diinta gaaranaysid ama aad dareen leedahoon caqligii ka duulin daaha xabiibkii salligii maba adideene haddii aad damiir leedahoon daabac lagu saarin xaqaa inaad ka doodaayi waa ku daminimooye dikrigan kusoo biir jannaad dalaq dhahaysaaye haddaad diido hadalkay xaqaashow laga dadaaye intaa dunida joogtaa xumaan lagu dabaalsiine aakhirana dabnaareed ayaad dalaq dhahaysaaye aakhirana dabnaareed ayaad dalaq dhahaysaaye hoyaalayey 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 hooye halkan ayay ku dhantahay tixdii difaac nebi waana gabay da'ley ah oo xarafka da'da ku socda aad iyo aad nooga faaleynahaya xumaanta nimankaas khawaarijta ee rasuulka xuskiisa diidan aad iyo aadna usugahayo oo uxusaayo in muslimiintu intay meel isugu yimaadaan ay mataqaanaa iswacdiyaan oo iswaanshaan oo wada dikriyaan oo mataqaanaa khayr ay isku sheegaan inay wax sugan oo islaamku uu qaba ay tahay ciddii intaas diidanna ay cid ka baxday muslimiinta jamaacadoodii ay tahay oo kuwii rasuulku yidhi ay tahay man shadda fi naar qofkii keliyooba naarta ayuu ku keliyoobaa marka ilaahay ha naga dhigo kuwii diinka ilaahay difaaca mawlidka rasuulkana dhiga khayrkiisa iyo barakadiisana hela insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq kaasi wuxuu ahaa gabaygii difaac nebi oo da'leyda ahaa waxaan kaloo ku xujin doonaa haddii alla idmo tixdii kale oo la magac baxday boqorka diimeed tixdan boqorka diimeed oo iyaduna isla mawlidka rasuulka ku saabsan waa tix bacley ah oo xarafka bacdaa ku socda iyaduna sidoo kale waxay sheegaysaa in mawlidku barako bishaaro iyo bilkhayr yahay farxad iyo baraarana uu yahay ruuxii ku farxa oo mataqaanaa usoo bambaxana wanaag iyo khayr uu kala kulmayo qofkii laga hoojiyo oo ka qarana uu noqonayo qof khayrkii laga hoojiyey cidda kaliya oo aan jeclayn oo mawlidka rasuulka necabna ay tahay
yuhuudda kiristaanka ah iyo wahaabiyada xijaas laga keenay oo har iyo hameen dariiq kasta la taagan ayda muslimiinta iyo xumaanta ay ka sheegayaan iyo mawlidka rasuulka iyo dhalashadiisa lagu farxo inaysan diinta wasal ku lahayn meel kasta la taagan kuwaasna waa ka digayaan marka tixdii kalena waa tane dhagaysi wacan bacley gabay baryahan maanan tirin baydadkii shiciire bisinkaanka doortiyo inaan khayrka baadiyaaye bidcadan xunbaa igu dirtaye uma bareereen bishii nebigu uu noo dhashaan baydka dhaahayaaye goortii rabiic bilaatayo lagu bishaaraystay barkastaba ha joogee sunnigu wuu bannaan bixiye bishii nebigu uu noo dhashaan baydka dhaahayaaye goortii rabiic bilaato oo lagu bishaaraysto barkastaba ha joogee sunnigu wuu bannaan bixiye jacayl beerka loo geliyay guulla ugu beeray ayaa boqolku loo gowracaa bilaaha mawliide sadaqooyinkaan bixinaynaa lagu bulaalaaye barbaryaan laga marin mawlid baraka weeyaane bishaar iyo bilkhayr weeyo oo lagu baraaraaye bidcad iyo yuhuuddaan jeclayn boqorka diineed waxaa loo banaaxinahayee buunka laala yeerin oo khayrka loo bi'inayee beenta loo dhurayo bidcinimo inay tahay ayaan barax ku dhehnayn waxaa umul u boodboodayee baatilka u sheegi isburburinta beentiisa iyo baydad gaabnimaadu bidcinimo inay tahay ayaan barax ku dhehnayn shibilkaas biqlaynaaye ee qurunka buunbuunin bar aqliyaana aan loogu darin badan ka dheeraaday bidcinimo inay qaaday baan barax ku dhehnayn xasaankaas bardoodinahayee diintii kaaba bayray oo badankood islaamkii ku yidhi gaala loo badayay bidci xunaa inuu yahay ayaan barax ku dhehnayn waxse beenta loo sheegayo xumaaha loo baafin burcadnimo wixii ay rabaan lagu banaynaayo sadbursiin inay tahay ayaan barax ku dhehnayn barbaryaan laga marin mawlid baraka weeyaane bishaar iyo bilkhayr weeyo oo lagu baraaraaye bidcad iyo yuhuuddaan jeclayn boqorka diineed sunniyow baraaruga xaqii laga banjoogowye bidcadiina way badaatayee diraaxa soofaysta balo inay inoo qooshayaan baqaad ujeedaane khawaarij biraynteeda waa lagu badbaadaaye in la baaba'shaa lagu helaa bariyo dheeraade barwaaqo yimbaa laga dhaxlaa buddi loo qodoye haddaan buufino aan dhammaan baaqi laga reebin oo kutubtii ay soo wada barteen baasin lagu daaro bidcinimo inay dabar go'daan baxar ku dhe
bidcinimo inay dabagoodaan barax ku dheehnay barbaryaan laga marin mawlid baraka weeyaane bishaariyo bilkhayr weeye oo lagu baaraaye bidcaadiyo yuhuuddaan jeclayn boqorka diineed baariyow rasuulkii bishii eebba soo bixiyey habeen baaqigiisii damo bari isniinaada in bishaara noo timid ayaan barax ku dheehnayne baariyow rasuulkii bishii eebba soo bixiyey habeen baaqigiisii dambo bari isniinaada in bishaara noo timid ayaan barax ku dheehnayne bashiirow nadiirow kolkuu soonka baadinayey bartilmaan inuu yeeshayoo laguna beegayo oo ay bari isniinaad tahaan barax ku dheehnayne barbaryaan laga marin mawlid baraka weeyaane bishaariyo bilkhayr weeye oo lagu baraaraye bidcaadiyo yuhuuddaan jeclayn boqorka diineed ruuxii cudurku soo boodo oo badan ku naafoobo salligaa buskaynaayo oo lagu baxnaanshaaye badiyaay xuskii nebiga waa lagu badbaadaaye barbaryaan laga marin mawlid baraka weeyaane bishaariyo bilkhayr weeye oo lagu baaraaye bidcaadiyo yuhuuddaan jeclayn boqorka diineed barakadiisa ilaahowna sii ku baryaanahaaye oo xabiibka nagu beeg allow baari baa tahaaye kuwiinoo bilaabana allow miisaanka u buuxi barakadiisa eebbowna sii ku baryaanahaaye oo xabiibka nagu beeg allow baari baa tahaaye kuwiinoo bilaabana allow miisaanka u buuxi barbaryaan laga marin mawlid baraka weeyaane bishaariyo bilkhayr weeye oo lagu baraaraaye bidcaadiyo yuhuuddaan jeclayn boqorka diineed hoyaalayey 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 hooye halkaas ayay noogu dhamaadeen labadii gabay gabaygan bidcadii iyo yuhuuddaan jeclayn boqorka diineed magacaas aan u baxshay waxa weeye mawlidka ayaan waxaan u naqaanaa boqorka diinta maxaa yeelay diintu waxa weeyaan haddii aan rasuulku dhalan lahayn salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi oo bishaaradiisu aysan imaan lahayn oo aan diintana loo kugu soo dejin lahayn haddee waxa weeyaan diintani maba soo degteen markii rasuulku dhashay oo ilaahay rasuulkiisa uu barbaariyey oo uu soo diray kadib baa diintana lagu soo dejiyey marka mawlidka iyo dhalashada rasuulka oo lagu farxaay waa boqorkii diinta weeye qofkii boqorka diinta ku farxaana qof diinta islaamka ku farxay weeye qofkii diinta islaamka ku farxaana mu'min buu noqonayaa qofkii mu'min noqdaana ahlu janna uu noqonayaa sidaas darteed labada qof oo necab oo mataqaanaa yuhuudda ilaahay nacladay oo qur-aanka uu ku sheego oo yidhi walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum yuhuud iyo nasaara kaa raali noqon mayso ilaa aad diintooda ka raacdo kuwii ilaahay yidhi subxaanahu watacaala uu rasuulka ku yidhi oo aysan marna in la raaca ahayn iyo qolyaha ay soo dirsadeen oo mataqaanaa wahaabiyada ah oo inta mataqaanaa diinta islaamka loogu soo gabaday diinta islaamka taxriifinaysa oo diinta islaamka iyo khayrkii dadka ka hor istaagaysa oo sidii qoladii munaafiqiinta ahayd oo ilaahay yidhi wanaagana way iska reebaan xumaantana way is amraan u dhaqmaysa kuwaas iyo yuhuudda ayaan jeclayn marka labadaas qofkii raaco hadda adigu meesha labadaas ku geynayaan waa taqaanaa naarun bay ku geynayaan qofkii muslimka iyo islaamka soo raaca
oo jamaacada islaamka soo raaca oo adduunka fi anxaa'i alcaalam meel kasta adduunka mawlidka looga dabaaldegaaye dabaaldegaas ka soo qayb galaana qof muslimiintii jamacoodii laazimay ayuu noqonayaa oo rasuulka ayaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi calaykum biljamaaca waxaad laazimtaan jamaacada laazima maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala jamaacada ayuu la jiraa waxaana idinkaga digayaa furqanimada iyo kala taga maxaa yeelay qofkii furqa noqda oo shaad noqda ee sadda fi naarta ayuu ku kaliyoobaa ilaahay baanu ka magangalay marka insha allahu tacaala kuwii gabaygaas kuwaana qaata mawlidka rasuulkana ku farxa weligoodna daa'ima ilaahay ka dhimana ilaahay naga dhigo dambigeena iyo dambiga waalidkeena allah ha dhaafo ilaahayna mawlidka iyo ixtifaalka iyo khayrka iyo barwaaqada ha naga aqbalo allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim وبالله التوفيق